kulanti waxaana wanaagsan saaxiibayaal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu meel walba aad joogtaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamij gaar ah oo aan idinkaga soo gudbino magaalada Helsinki xarunta uu ku leeyahay telefishinka Som TV Finland. barnaamijka maanta waxaa inoogu marti ah hay-adda caafimaadka iyo nolol wanaaga dalka Finland loo soo gaabiyo THL maanta iyaga ayaa inagu soo booqday xarunta telefishinka Som TV ee magaalada Helsinki labadan gabdhood ee ka socda hay-adaasi THL la yiraahdo kala ah Natalia Skubrek iyo Idil Hussein kusoo dhawaada telefishinka Som TV Finland xaruntiisa magaalada Helsinki. Idil haddii aan adigu kugu hormaro ujeedka socdaalkiina muxuu ahaa? maanta waxaan u nimaanay inaan ka hadalno cilmi baaris hadda soo baxday oo ku saabsan cudurka koronaha iyo saameynta uu dadka ku leeyahay. cilmi baarista soo baxday waxaan rabaa inaan weydiiyo Natalia, cilmi baarista maxay quseysay? Kysymys, mitä tutkimus koskee? Tutkimuksessa selvitämme koronaepidemian vaikutuksia ulkomailla syntyneiden terveyteen ja hyvinvointiin. Eli katsomme, miten korona on vaikuttanut arkeen ja eri elämän osa-alueisiin. Cilmi-baarista marka waxay baaraysaa saameynta cudurka koronaha ku yeeshay dadka dibadda ku dhashay ee nolol maalmeedkooda. Waa arrin fiican. Marka cilmi baaristaasi maxaa ka soo baxay? Onko meillä tutkimustuloksia vielä? Ei ole vielä. Tutkimus on vasta 2 viikkoa sitten käynnistynyt ja nyt me odotamme, että vastauksia tulee. Ja tulimme kertomaan tästä tutkimuksesta sen takia, että varsinkin somalinkielisten osallistuminen on ollut aika vähäinen tähän asti, niin haluaisimme kannustaa ihmisiä osallistumaan tutkimukseen. cilmi-baaristan way cusub tahay, waxay soo baxday 2 isbuuc ka hor. Marka ujeedada aan maanta aan idinkugu soo booqano waxaa waay sidaan idinkugu sheegno dadka oo Soomaalida af Soomaaliya ku hadlo inay xoogaa maaragtay jawaabo badan kama hayno. cilmi-baarista dhowr luuqadaa loo turjumay, laakiin ilaa iyo maanta dadka Soomaaliya ku hadla ugu yar jawaabahay soo dhiibeen. Marka waxaan rabnaa inaan imaano oon idin sheegno calashaan cilmi-baaristan inay jirto oo ay muhiim tahay in laga jawaabo. hay-adda caafimaadka iyo nolol wanaaga ee wadankan Finland sameysay cilmi baarista ku saabsan koronaha oo farabaan ku haya hadda dunida ayay maanta ujeedka socdaalkoodu yahay. waxaan rabaa Natalia inaad sagale inoo weydiiso cilmi baarista Soomaalida qayb intee la eg ayay ku leeyihiin? Kuinka moni somalinkielinen tai kuinka suuri osuus vastaajista on somalinkielisiä tähän tutkimukseen? No, kutsuttiin noin 1000 henkilöä, eli lähes joka 10. Somaliassa syntynyt henkilö on kutsuttu tähän tutkimukseen. Cilmi-baarista marka waxaa loo diray 1000 qof oo af Soomaali ku hadasho. Waa qofkii calashaan waa 1000 qof. 1000 qof. Marka imise qofood baa ka soo jawaabtay? Näissä kuinka paljon vastauksia meillä on somalinkielisistä? Noin 30. Soddon. waayahay dadka inta aan loo dirin ka hor ma lagala hadlay warbaahinta sidaan oo kale oo ma la fahansiiyey cilmi baarista in loo soo diraayo isla markaana loo baahan yahay inay kasoo jawaabaan? Ollaanko tiedotettu tästä tutkimuksesta ennen tutkimuksen alkua somalinkielisille? Ollaan kyllä tätä tutkimusta suunniteltiin todella nopealla aikataululla. Mutta kyllä jo pari viikkoa ennen kuin kutsut lähtivät, niin tiedotettiin erilaisille somalinkielisille yhteisöille ja avainhenkilöille. Ja nyt tiedotamme koko ajan lisää. Inkastoo cilmi-baarista maaragtay si dhaqsan ugu soo galay muddo 2 isbuuc intuuna soo bixin ka hor waan la xiriirnay ururo Soomaaliya dad maaragtay bulshada Soomaalida ku jiro oo waan u sheegnay cilmi-baarista inay soo socoto ilaa iyo maantana waan wadnaa maaragtay warbixinta inaan dadka u sheegno. waayahay cilmi baaristan ilaa iyo goormay soconaysaa? Kuinka pitkään tutkimus jatkuu? Tutkimus jatkuu ainakin marraskuun loppuun asti.
ehkä jatkuu hieman joulukuun puolelle, mutta on lyhyt tutkimusjakso. cilmi baarista waxay soconaysaa ilaa iyo bisha 11 dhammaadkeeda. ma isleedihiin maadaama hadda dadka kasoo jawaaba cilmi baarista ee soomaalida ah ee aada u yar yihiin ma isleedihiin hadday daawadaan barnaamijkan oo kale inay kasoo jawaabi doonaan? Okei. Koska suomenkielisten vastaajien osuus on nyt aika pieni, niin ajatellaanko me, että tämmöinen tiedottaminen esimerkiksi, jos se katsoo tämän lähetyksen, niin se auttaa siihen vastaamiseen? No me toivomme tietysti näin ja kyllä me koko ajan olemme vuorovaikutuksessa somalialaistaustaisen yhteisön avainhenkilöihin ja mietimme, että miten me voidaan parantaa. Tämä on yksi keino, mutta meillä on monta kanavaa, jota kautta yritämme saada tietoa tästä tutkimuksesta eteenpäin ja ihmisiä kiinnostumaan ja ymmärtämään tämän tutkimuksen tarkoitukseen. Waa rajaynayna in qof walba barnaamijkan daawado oo maaragtay warqadda u soo dhacday cilmi baarista inay kasoo qayb qaadato. Waa shaqo yacni oo maanta iyo beri dhammaanaynin inay dadka maaragtay la wacyigeliyo, laakiin waxaan haysanaa dhowr qof maaragtay dhowr contacti aan leenahay oo bulshada ka mid ah. Tusaale ahaan aniga cilmi baarista gacalishaan ku jiro, dadka qabanaya ayaan ku jira, aniga Soomaaliyaan ahay. Waxaan xiriir la leenahay dad maaragtay oo bulshada ku dhex jiro oo dadkii la socdo oo intaasoo qof maaragtay usii gudbin karo hadalka, laakiin waan rajaynaynaa. Waxaan rabaa si aan ugu faa'iideeyo dadka daawanaya programka idilay in aan ogaano cilmi baarista ma email baad ku dirteen mise warqad ahaan baad dadka guriga boosta ugu dirteen? Tutkimuskutsuista, että onko ne lähetetty millä tavalla? Ne on lähetetty postitse ja tosiaan noin 2 viikkoa sitten ne saapuivat meidän tutkimuksen kutsutuille henkilöille. Tässä on tärkeää myös tosiaan mainita, että vain ne henkilöt, jotka ovat saaneet kutsun tutkimukseen, voi osallistua siihen. Cilmi baarista boosta ahaan dadka loogu diray, dadka oo kunka qof oo la dalbaday oo calishaan loo doortay cilmi baarista. Waxaa muhiim ah inaan ku soo celiyo haddaan hore usii sheegina. Cilmi baarista waxaa ka qayb qaadan kara keliya dadka maaragtay oo warqadda loo diray. Calishaan qof walba Soomaali kama qayb qaadan karo, dadka keliya oo looga yeeray ka qayb qaadan karo. waayahay daawadayaal weli waxaad daawanaysaan programkan idinkaga imaanaya telefishinka Som TV xaruntiisa magaalada Helsinki. Barnaamijkana waa barnaamij khuseeya arrimaha caafimaadka iyo koroonaha ee hay'adda caafimaadka iyo nolol wanaaga dalka Finland oo nagu soo booqatay xarunteena isla markaana ka warbixinaysay cilmi baaris ay sameynaysa hay'adda in loo diray dhammaan dadka ku nool wadanka Finland intooda iyaga xusheen, dadka Soomaaliyeedna loo diray ilaa iyo 1,000 qofood. Jawaabta ka timidna ay aad u yar tahay. haddii aan programkan aan kusii faahfaahiyo, warqadda waa warqad ay ku qoran tahay THL ama THL oo ku xiran warqad weyn oo boosta ah haddaanan khaldanayn. laftirkii maanta markaan guriga kasoo baxayay ii soo dhacday, inkastoo caawa aan ka jawaabi doono. waxaa laidinka codsanayaa in warqadaas cilmi baarista ah aad waqti siisaan oo aad ku soo celisaan hay'adda caafimaadka iyo nolol wanaaga wadanka Finland si loo ogaado xaaladda koroonaha iyo dhibaatooyinka uu geystay iyo kulli warqadda wixii ku qoran. laftirkii caawan ogaan doonaa. taas waa taas. haddii aan khaldanayn warqadda taa sheegaya soo maaha? way barnaamijkeenan sii galaynaa marka. haddii Soomaalida ay ka soo wada jawaabto 1,000 qofood ee loo diray, dadka Soomaaliyeed intooda badan waxay jecel yihiin inay ogaadaan ujeedka laga leeyahay muxuu yahay? Mikä on tutkimuksen tarkoitus? Jos Tarkoitatko, sen 1000 vastaajaa ja joo, mitä me teemme tällä tiedolla? Kyllä. Joo, no toi on tietysti tosi hyvä kysymys. Ja tämä tieto käytetään palveluiden kehittämiseen koronaepidemian aikana ja myös sen jälkeen. Eli nyt jokainen, joka on saanut kutsun tutkimuksen, hän edustaa oman ikäluokkaan ja sukupuoleen kuuluvia henkilöitä, jotka ovat samassa maassa syntyneet. Ja hän antaa äänen omalle yhteisölle. Ja tämä on todella tärkeää, että kertoo, mikä se tilanne on, jotta tämän tiedon pohjalta voisimme kehittää palveluita.
macluumaadka cilmi baarista ka soo baxo waxaa la rabaa in lagu wanaajiyo adeegyada ay bulshada u baahan tahay xilliga koronaha socda iyo xilliyada ka dambeeya marka maadaama aan cilmi baarista laga asumi karin maaragtay qof walba oo Soomaaliya wadanka degan alashaan oo dibadaha ku dhashay Soomaaliya ku dhashay laakiin wadanka degan aad muhiim u tahay adiga hadii shakhsiyan lagu soo dir warqad inaad ka jawaabtid because waxa codsiinaysa dadka adiga maaragtay aad isku jinsi tihiin aad isku fac tihiin aad isku magaalo degan tihiin aad isku maaragtay heer tihiin marka aad muhiim u tahay in laga jawaabo waayahay waxaan rajaynayaa dadka Soomaalida oo aad u dhagan oo wadanka Finland degan inay ka jawaabi doonaan warqadaasi hay'adda caafimaadka iyo nolol wanaagga wadanka Finland teho la yiraahdo hadda koronaha wadanka xaaladiisa intuu maraya tällä hetkellä mikä on koronatilanne Suomessa? Paras asiantuntija kertomaan. Maanta 215 kiis cusubaa la sheegay 99 kiis oo Helsinki keliya marka maaragtay nawaaxiga caasimada uu badan yahay cudurka waqtigan xaadirka barnaamijkan hore uga qayb galay isla markaana Som TV laftirkiisa ka baxay idil aad baa ugu faahfaahisay isbuuc inuu ahaa bal isbuucan xaaladiisa makii hore uu ka liitay mise uu ka sareeyay labada isbuuc hadda la soo dhaafayay wax yar uu dhama labada isbuuc kale labada isbuuc alashaan oo hadda labada isbuuc la xisaabayo hadda ka horeysay laakiin xaaladda ilaa weli alashaan muhiimadda koowaad waxa waa inaan wada fahno cudurka weli ma dhamaanin uu sii socdaa cudurkana maaha maarta cudur fiirinay yaa tahay intee degan tahay iyo maaragtay alashaan meel walba ka soo raaci karaa qofka maaragtay hadduu is ilaaliyo xataa uu ku dhici karaa marka aan isku wada naxariisano dadka maarta qaraabada ehelka saaxiibada aan wada naxariisano aan maaragtay is ilaalino aad ma santahay idil su'aasha ugu dambaysa ee Natalia aan weydiinay waxay tahay maadaama Som TV aad joogtay xaruntiisa aadna la hadlaysay dadka Soomaalida ee degan wadankan Finland fariinta ugu muhiimsan ee fursadan uga faa'iideysanaysid maxay tahay tänään koska ollaan Som TV:n tiloissa ja puhutaan somaalinkieliselle yhteisölle mikä on semmoinen tärkein viesti minkä sä haluat tänään kertoa eteenpäin No, haluaisin kertoa tämän tutkimuksen merkityksestä ja että kannattaa vastata. Sillä on yhteiskunnallista merkitystä ja henkilökohtainen pieni ilo tästä on, että suoritamme kaikkeen vastanneiden kesken arvonnan. Voi voittaa gigantin lahjakortteja. maanta fariinta ugu muhiimsan aan rabo inaan dadka la qaybsato waxa waaye waxa laga jawaab cilmi baarista aad muhiim u tahay wax yar oo maaragtay oo dadka lagu soo jiitana waxa ah in waqtiga nasiib kamid yahay dadka alashaan dadka oo ka qayb qaato cilmi baarista waxay heli karaan kaar hadiyad oo dukaanka giganti ah waayahay aad u mahadsan tahay idil adigana adoo ka faa'iideysanaya fursadan dadka Soomaaliyeed ku daawanaya maxaad ugu gudbin lahayd aniga waxaan dhihi lahay maanta laga bilaabo qof walba ha ku dadaalo sidoo cilmi baarista uga maaragtay qayb qaadan lahay uu fikradiisa u baxsan lahay because intaano sana aan hadda maaragtay dhalinyarada wadanka ku dhashan kamid ahaan intaasoo sana wadanka waan deganahay maqana joogaanahay cilmi baaris walba maaragtay oo ku saabsan dadka dibadaha ku dhashay ama dadka luqadaha kale ku hadlo annaga haddaan ka maqanahay sawir say ahaan aniga dadka siinaynaa markii go'aamo la soo gaarin anaga nagu saabsan waxaan dhahaynaa aniga waxaan ma ogeyn yani waxaan la iima sheegin aniga fikradan ma qabo marka jawaab walba waa muhiim waayahay barnaamijkeena intaas ku soo gabagabeynayna aad bay u mahadsan yihiin idil iyo Natalia oo ka socday hay'adda caafimaadka iyo nolol wanaagga wadanka Finland oo maanta halkan inoogu soo gudbinayay cilmi baaris ay sameysay THL oo quseeya arrimaha koronaha sida barnaamijka dadkii hore u daawaday ee la socdeenba hay'adda ayaa waxay sameynaysaa cilmi baaris waxaana loo dirayaa dad badan oo wadankan ku nool oo jinsiyada kala duwan haysta dadka Soomaaliyeed waxaa loo diray ilaa iyo 1,000 qofood inta ka soo jawaabtayna aad bay u yaryihiin waliba aad bay u yaryihiin waxaa la doonayaa oo ujeedka TV-ga loo soo fariisto waxa ay tahay TV-gan in uu yahay TV Soomaalida wadanka Finland ee aad ugu xiran yihiin lana doonayo in dadka Soomaaliyeed loogu sheego fariintan oo ah in loo baahan yahay in ay ka soo jawaabaan cilmi baaristan qusaysa arrimaha koronaha su'aalaha ma ah su'aalo shakhsiyan ku taabanaya waa wax guud oo dan u ah dadka degan wadankan Finland hadii loo fiiriyo dhan caafimaad dhan dhaqaale iyo dhan waxbarasho iyo dhan maskaxeedba intaba wax uu noqon doona fursad aad uga qayb qaadanayso
in loo faa'iideeyo dadka kale. Marka waxaa laydinka codsanaya oo mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad laydinka codsanaya in aad warqadahaasi fiirisaan oo aad ka jawaabtaan cilmi baarista. waxa ay suurtagelin doontaa inaad qayb ka noqotaan dadka wadankan degan ee go'aanada marka la gaarayo dhankoodana la fiiriyo. laakiin haddii cilmi baarista aad ka qayb qaadan weysaan ama tan ha noqoto ama cilmi baaris kuwa kale la sameyn doono ama hore loo sameeyey, waxay noqon doontaa in go'aanada soo baxo aadan wax saameyn ah aadan ku yeelan, isla markaana hadhow annaga Soomaaliyan aan niraahno na lagama tashanin iyo arintan annagana lagu tiigsaday iyo annaga waxna looga sheegaya. marka dhanka kale u dhigo warqada marka aad furtaan waxa ku jira kaar hadiyad ah oo ay bixinayaan dukaankan Giganti. ka jawaab ka faa'iideyso waxa laga yaabaa waxyaabo badan oo aad doonayso oo Giganti yaalay oo aad lacag ku bixin lahayd in hadiyad ahaan aad uga hesho THOL. waqtiga nasiib baa la wada galaa qofkii ku raaya helayo. waa kay idil marka ay ku celisay baqtiyo nasiib baa la galaya. baqtiyo nasiibkaas waxaa suurtagal ah inaad ku guuleysato oo wax lacag ka bixin lahayd aad ku hesho lacag la'aan. fursadaasina ha dhaafinin una faa'iiday dadka cilmi baarista ku soo weydiiyay si aad qayb uga noqoto go'aanada soo baxaya. aad baan ugu mahadcelinayaa Natalia Skobrog iyo Idil Xuseen oo ka socday THOL haddaan af Soomaaliya inay hay'adda caafimaadka iyo nolol wanaaga wadanka Finland oo programka nagala qayb galay naguna soo booqday stuudiyaha Som TV ee wadanka Finland. saaxiibkay Chuchu baan u mahadcelinayaa oo kaamirada ii duubay. waa Sharmaaka Abuukar Amiin oo idin la taliya kulantii dambe. nabadgelyo hala taxadaro.